kulan ay isugu yimaadeen wariyaasha ka howlgala magaalada Galkacyo ayay ku xuseen maalinta joojinta tacadiga loo geysto suxufiyiinta waxaana dhammaan wariyaasha halkaasi ka hadlay dareenkooda ku caabireen qaabka loo joojin karo tacadiyada ku dhaca wariyaasha ka howlgala gudaha Soomaaliya kulankana waxaa soo qabanqaabiyay ururka suxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed NUSAJ qaar ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada Galkacyo oo isugu jiray howlwadeena iyo mas'uuliin ayaa halkaasi hadal ka jeediyay waxaan filayaa xafladaha noocan ah in la weyneeyo la badiyo laga soo horjeesto tacadiga waxa weeye wariyaashuna ay noqdaan kuwa isku duuban runtii waxa weeye hadii wariyaashu isku duuban yihiin waxa meesha ka baxaysa in tacadi badan loo geysto waxaan leeyahay war saxafigu wuxuu u shaqeeyaa waa bulshada maadaama uu bulshada u shaqeeyana waxaan dhahayaa war wax kasta oo aad jeceshiin ka dhex arki maysaane dulqaata maxaa yeelay kan idin ka soo horjeeda oo aan adiga ku taageersanayn codkiisa in la gudbiyo u baahan yahay kan adiga ku taageersanna waa sidoo kale marka hadii maanta aad aragtay wax adiga ku dhibaya ha u qaadan wax adiga gaar lagu dan leeyahay waxa u qaadataa wax lagu la wadaago wax walba ama tilaabo kasta ay qaadayaan khaasatan hablaha maadaama soo istaagan gabadha wiilasha ugu horeeyeen ay ka wada hadleen khaasatan hablo aad bay ugu nugul yihiin xagga saxaafadda waxaana la dhahaa aad bay ugu dambeeyaan xagga saxaafadda wariba gobolka Mudug maanta waxaan arkaa inay gabdho badan fadhiyaan aynu awal ku yareen saxafiyo inta dhibaatooyinka haystaan Ilaahay ka dulqaado dhamaanteen waxaan rajaynayaa insha Allah inaan noqono dad horumar gaar ah hadalka ma badinayo waxaan oran karaa 2 November aynu astayno sida qaramada midoobay uga astaysay inay tahay maalin la dagaalamayo oo la joojinayo tacadiga suxufiyiinta tacadiga suxufiyiinta waxa u weyn dilba u weyn aflagaado iyo hanjabaad baana u yar xaqiiqdii saaxiibo badan oo lahayn Allah naxariisto way geeriyoodeen kuwa badan way dhaawacmeen waad ogeydeen hadda Xasan uu hadli kari waayay isagoo dabcan urku taladii ay ku reebtay tacadiga loo geystay Allah naxariisinta dhimatay 2 November waxa laga hadlayaa waa tacadiyada saxafiyiinta runtii tacadiyada saxafiyiinta loo geysto ma aha kuwa aad u yar laftigii waxaan ka mid ahaa saxafiyiintii dhibaatada ay soo gaartay hase ahaatee haata ka bogsooday runtii maanta aad baan u qeeraysanahay ma jecli inaan ku sii dheeraado tacadiyada markii laga hadlaayo shalay u dambeysay waad ogeydeen saxafi saaxiibkeena ku dhintay Mustafa Allah naxariistee markii aan maqlay saxafi waa geeriyooday runtii aad baan u dabqadaa waana yaani wax laga xumaado ma jecli hadalka inaan ku sii dheeraado haddii aan gacanteeda intaan sidaa iraahdo aan ku dhufto ninkan xiga markaas waan xadgudba qofkan xoriyadiisaan wax u dhima markaas kadib aniga tayada la ilaalin mayo marka waa inaan ilaaliyaa xoriyada dadka kale xuduudahoodana aan u gudbin si aan anigana tayada la iigu xadgudbin waa inaad mar walba haddii aad saxafi tahay kordhisaa aqoontaada ogaataa waxyaabaha looga baahan yahay saxafiga isku yimaadaan inay ka soo qayb galaan tacadiyada hore ma soo dhici jirin tire intaan la eeg oo riyaal ah inay yimaadaan runtii waxaan ku darsan lahaa iyadoo inta badan laga hadla tacadiyada wariyaasha loo geysto marka hore aan ka faa'iideysan lahaa fursadan in aan markaasi tacsi u diro wariyaashii ku dhaawacmay muddadii howlahooda shaqo ay ku jireen in markaasi Ilaahay caafimaad degdeg ah u siiyo kuwa dhintana markaasi Allah ugu bari markaas in janno firdawsa u geeyo cufiinta danaynaysa mihnada saxaafadda waxaan kula talinayaa runtii in ay markaasi ay dadaalaan aysan dabcan hadii aadan maaragtay saxaafadda markaas soo baratay hadii aadan idaacad u shaqeyn ama shaqadii aad helin ma ahan micnaheedu in saxaafadii aad ka niyad jabtid caqabado badan baa la kulmaysaa muddo sanado ah in xataa mihnadaadii iyo shaqadaadii lagu tixgelin waayo oo jaanis aad heli weysid marka waxaan ku dhiirigelinayaa dhalinyarada inay dul qaataan oo ay u dul qaataan dhibaato walba oo dabcan inta ay maaragtay mihnada saxaafadda ku jiraan ay u dul qaataan kulankan ayaa intii socday wariyaashu waxay dareenkooda ku caabireen sida loo joojin karo tacadiga ku dhaca suxufiyiinta iyagoo loo kala qaaday mid suxufiyiintu ay soo geystaan kaasoo ka imaan kara wararka ay tuminayaan inay noqdaan kuwa ka dhexdhexaada Cabdullaahi Yare TV-ga idaacadda SBC magaalada Galkacyo